أرضيا يفتينك أنا برنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rajaynayaa ardayda inay kulligiina caafimaad qabtaan. waxaa ila hadlaya Salmaan oo maamulka Afooge. sidoo kale waxaa khadka igula jiro macallimiinta iyo tiimka farsamada. waxay aad marka isbuuca hadda lasoo dhaafay isniinta in labada kulmo oo live lagu wada galo. horta habkan ku shaqeyno haddaan si toosaan idinkugu soo kooba waxay tahay ardayga isbuuc oo kale inuu bisha u qaato. bisha waxay ka kooban tahay ilaa 4 isbuuc ay ka kooban tahay. soo mar walba marka isbuuc uu dhameeyo isbuucaas waxa uu helayaa waxay tahay in loo soo fasaxo 6 cashar oo kala duwan. laakiin iyadoo hadda isbuucan kuwaad ay tahay ama isbuuc labaad labadaba waxay noqon doonaan muraajaceen doono oo qofka basiska laga dhisayo ama la xasuusinayo hadduu hore wax usoo dhigtadaa casharada hore uu qaatay. macal qofka codka u furan yahan waxaa ka codsan lahayn iska xir. okay marka hadda codka si fiican loo maqlaya arjeera. okay marka sida u wada shaqeyna wuxuu yahay marka in isbuucaasi 6 cashar oo ardayga uu qaato. 6 cashar marka uu dhammaystiro kadib assignment loo diro. qaarkiin hadda assignmentkii way soo jawaabeen ama way soo direen. 6daas casharna waxay wadatay 6 imtixaan uu watay oo cashar walbo imtixaan lagu galayo. kadibna marka uu gudbaya ardayga markuu 6daas cashar uu qaatay 6diis imtixaan uu galo kadib waxa uu gudbaya waxay tahay assignment inuu kasoo shaqeeyo waajib loo dirayo. waajibkana si gacan leh ama si toos ah macalinka markaasi kaaga jawaabayo ama ku saxayo. kadib markuu macalinka ku saxo waxa ku soo baxay ama lagu soo kaga qayb gali doonta ama isbuucaasi dhamaadkiisa ayay ku noqon doontaa. haddii lacalla casharada 3 beri ku dhamaysid ama 2 beri ku dhamaysid laazim waa macalinka markaasi inaad sugtid iyo walaalaha kale kugu jiro groupka inaad is wada sugtiin waayo. soo nidaam loo degsan waa oo qof gooni u soconayo ma jiro in labada socdo waayo. waxyaabaha ama ahmiyad weyn aan ka leenahay waxay tahay groupkan aan iska keenay in ardayda isqeybiyaan oo ama wada shaqeysaan oo practice sameysaan aan ka wada qayb qaadataan. muhiimadda practice-ka u leedahay waxaa waaye wax walba xirfad la baranayo. waxaan wax la xifdiyo ma ahan, cilmi ma ahan. marka luqad laga hadlayo luqad cilmi ma ahan. cilmiga la xifdiyaa, cilmiga wax qawaaniin leh. inta qawaaniin way jirtaa laakiin sida qawaaniintii oo rasmiga ma ahan oo markaa ku isbedelay. marka sida weyn oo qofkan uu ku xasuusan karo ama uu ku xifdin karo waxay tahay ama uu kula socon karo ama uu ku practice gareyn karo. waxa wanaagsan in practice-ka uu badiyo sidoo kalena team la isku qaybiyo. oo anagana ma idin soo dhaxgal karno arrinta teamka idinka taqaaniin oo idinka inaa isbaratiin inta maadaama hal meel aan iskiin keenay oo halaas aan idin fudeedino ujeedadiina ay tahay hal ujeedo. marka idinka inaa iskala xulataan sida u wada shaqeynaysaan ama sida markaas isku qaybin kartaan in sidaas aad samaysaan. taas waa marka ujeedada ugu weyn oo groupkan u wada imaateen. laakiin haddaa isaga jirtaan groupkii nin walban goono isaga socdo cashar kale iska qaadataan haddana casharka ku xigla qaadataan weligiina meeshiina taagnaanaysaan oo isbedelna ma dareemi doontaan. marka waxa ugu wanaagsan oo inaad samaysaan waxay tahay isbedel saa ku dareentaan laazim waa inaa waxaan xirfadani aad practice gareysaan ku hadashaan dhexdiina ka wada qayb qaadataan cashar walbana gooni markaasi u xifdisaan. xifdis keliya ma ahan weliba xifdis kuma talinaya markii ay tahay english markuu yahay ama luqad markii ay tahay xifdin. hadda haddaa xifdisid englishka keliya kalimaadka uga kooban yahay waxay tahay ku dhawaad kumanaan wa. marka wax macquul ma ahan kumanaan kelimadood inaa maskaxdaada ku haysid ama xifdisid. sida ugu wanaagsanaa waxay tahay halaha yar aad qaadatid inaad practice garaysid kadibna asiga isfurfurmaan. waa sida caruurta oo kale markii luqadda ay baranayaan cunuga yar haddii xaafadda idin joogo ama aad taqaanin habka ugu wanaagsan oo luqadaha ku bartana sidaas waaye. wax uu xifdiye ma jirto. kulligeen af soomaali soo xifdina ma jirto. af soomaaliyiin asaa iska imaada wax buug aan qaadanay oo naloo dhigay af soomaali kelimadaana jirto kelimadaana ama grammar noocan uu leeyahay sidaana laisugu dhajiyaa. qof loo dhigay ma leh. qof walba suu practice gareyna ilaa ugu dambeyn heerkan uu soo gaaro oo luqadii oo soomaaliya inuu si toos ah uga hadlo. englishkan waa isla sii fikradaas oo waxba ma ka duwno. wax la xifdinayo ma jirto oo haddaa waxyaabaha ku dadaalna waxay tahay
in qofka aanan buug iyo waxaas aan lagu shideenin oo ah qofka dumar buug helo waxa meesha ka bixaysa wixii inuu practice gareeyo waxa meesha ka baxaya wuxuu noqonaa in qofka wax uu dhigo waxa meesha sidoo kale ka baxaya waxa qofka inuu wax muraajaciyo ama wixii inuu markaas si fiican u daawado ilaan wixii buugu iskaasta buugu iska qabana uu highlight gareena hadii buugu daawacitaan qofka lagu xujeeyo ama aan soo bandhigno marka ujeedooyinka ugu weyn aan ka leeyahay taas ay tahay qofka inuu casharkii uu qabsado buug uu soo gato qalin uu soo gato uu macnaha waqti uu samaysto asiga ita hadaa waqti kuma xirno in lagu dhaho waqti heblow imaa ama waqti heblow imaa kulligeena isku waqti min hadda u jeedin groupka intaasoo ardayda ku jirto ma filayo in ardaydan u maqan yihiin sida si kas ah oo mid walba waxaa dhici karta inuu barnaamij uu ku furan yahay ama si wax uu haysto ama si u mashquulsan yahay sababtaas waa sababtii marka barnaamijkeena uu guuleysanayo idinka dhankiina oo ah qof walba waqtigiisa asigaa yaqaano qof walba waqtigu markaas wixiisa practice gareynayo asigaa yaqaano marka in la sameeyo nin walba waqti asiga u gooni ah uu fiirsado ilan qaarkiin waxaa dhici karta in ardaynahay qaar iskuul ay tahay qaar jaamacad ay tahay qaar shaqaale ay yihiin qaar guri ay ka shaqeeya isku waqti ma nihi sidoo kale isku shaqo ma nihi marka nin walba asi inuu fiirsado waqti ugu habboon maalintiisa oo maskaxdiisa ay furan tahay ha noqoto habeen waqti dambe ha noqoto subaxdii ha noqoto galab idinkaa taqaanay nin walba isku mid baan mala dhihi karo aniga waxa aniga igu guuleysto ama qorshe aniga aan ku guuleysto adina wuu kugu guuleysanaa macquul ma noqonayso nin walba si un waqtigaa jirto asiga ay tahay maskaxdiisa ay furan tahay marka taasaan idinkula talin lahay nin walba in waqti markaas uu samaysto practicena team uu raadsado ama teamka hadda uu groupka ka hadlo uu dhaho yaan iskula baxna gooni yaa diyaar ah qaarkiin way sameynayeen lagu dhahay marka group isku kooba groupkan yuu badnaanin insha Allah ustaadkana wuu idin talin doonaa talooyin kale ziyaado wuu idin siin doonaa taasna waa idin kula talin lahay marka habka uu noqonayo sida hadda idinku sheego waa isbuuc walba 6 cashar qaadan doontaan 6 imtixaan ay leedahay 6daas imtixaan adigoo aadan ka gudbin aadan ku baasin uma gud kartid casharka xiga casharo oo isdhaxyaaca qaadanaysa ma jirto casharkan ka qaad casharka kale ku xig adigoo casharkan aadan dhameyn casharka ku xig ma gudbi kartid sidoo kale casharaha ka soo sameyn hadaa youtube keena geshado afoogi waa ka arag kartaa wixii kale oo cilad ama farsamo ku imaato tiimka farsamada weydiin kartaa oo waa lagu caawin doonaa bes dulqaadkana laazim inaa basiin waayo ah arday walban waa arday dhan waan kula dardaarmaa inay dulqaadka ay badiyaan marka cashar la dhiganayo ama marka cashar la qaadanayo ama marka adheysid daf ama yool aan leedahay markaas rabtaa inaad ka bedelisid wax weyn uu kaaga baahan waxay tahay wixii inaa u adkeysatid oo dulqaadna aa muujisid marka dulqaadkana muhiim wax walba sidaas waaye oo aayadaha quraanka daa ay sheegaan aayadda quraanka inna maca alcusri yusra waa loo hormarin waayo inna cusri micnaha waxaa waaye adeega waxaa ka dambeeya yusr fudeed micnaha adeegiyaa la hormariyey marka adeeg walba fudeeda ka dambeyn doona isla noloshaas sidaas ah wax walba aad fiir oo noloshaada ku tiirsan ama noloshaada aad bilawday wax waas culeys kugu ah hadda marka sariirta aad seexanays oo guriga ahayn lagu geeyo adhaad lagu dhaho gurigan seexo waa adkaani habeenkood hore inaad ka seexdo isgadgadine laakiin habeenka labaad habeenka saddexaad caadi aad ula qabsanay hadda sariirta la seexanayo ama qolka aan seexanayn meelaha kale inta sidaas ay tahay cuntooyinka da mar qaarkood saas soonka daraadeed aan soo meenin sidaas ay maalmaha ugu horeysa waa aragteen rajayna sida uu adkaay maalmaha kale inta sida uu fududaaday wax walba adduunyada jir sidaas waa sidaasaan afoog naftarkeeda markii systemka hadda qaarkiin hadda way bilaaween qaarkiin hadda inay cusub yihiin rajayna marka kood ku cusbaysan systemka aad galeyseen aad isdiiwaan galeyseen qaarkiin uu ku adkaaday arday idin kamid ah jirto oo gadaal ka laabtay oo hore ka laabtay oo systemku uu adag yahay qaarkiin waa ku adkaysateen ilaa halaana soo gaartay qaarkiin isbuuca dhameyseen qaarkiin isbuuc labaad ay bilaawayaan waa ku adkaysateen wixii oo micnaha yoola idin muuqdo qaarna way ka daalin dibi u laabteen marka taas waa marka sababtan idin dhahayo wax walba inaad dulqaada u lahaatiin waa casharada qaadaysiin haddii lacala waxa faham waasin ustaadka iyo macallimiinta kulli diyaari idin yihiin waqti walba inaad wax weydiin kartiin waan idin diyaarinay sidoo kale casharada naftarkeeda aadan u fududaanin idinkan waa aragteen rajana oo cashar oo wax weyn ku dadaalna waxay tahay ilan waa naqaana casriyan ku jirno casr degdeg badan waa casr uu qofku waqti badan uusan fadhin karin waxaas dhan anagoo psychology aan u fiirinayno nafsi aan u fiirinayno casharada dhan gaagaaban macallimiinta waxaa ku dadaalna inaan ku dhahno inaysan hadalka badinin aan mawduuc aysan ka dhex bixin
keliya si toos ah ama direct ahaan ay u tagaan casharka si saxsan casharka iyagoo waxba aanan ku derinin oo casharka keliya ay ka hadlayaan iyagoo muddo badan u tababartay arrintaasi oo ma ahan waxa iska keeneen keliya oo tababaro iyo sidoo kalena xirfad ay u leeyihiin iyo aqoon dheeri ah samaysteen waa u samaysan ama ay leeyihiin waa marka idinkan waa aragteen idinkan waa soo gudbin kartiin wixii cabasho ama cilada aa aragteen ama wixii oo aad ka suwaaseen wixii farsamo oo cilada idin soo waajahdana insha Allah markuu macalinka hadda uu idin xaliyo ama idin sharxo waajibka isbuucan la idin diray kadib aan insha Allah anina markale idinku soo laaban doona wixii cilado ama cabasho aa qabtiin kulli aan idinkaga jawaabi doona insha Allah marka wax weyn asku dardaarmayna waxay tahay oo mar walba idinku celcelin doono waa ugu weyn ay tahay waa dulqaadka wax walba dulqaada lagu gaara idinkan waa taqaan dad wax loo sheegay batiin mantii dad qoorta laga soo qabto oo foog lagu soo tuuro nin walba wuxuu imaasiga asaa soo xilqaamay wana yool u jeeda marka yoolkaas saa ugu miro dhalisid sida ugu wanaagsan waxa waa dulqaad waay waxaan naqaan hadda arday oo hadda dufcadii idinka horeysa ilaa waxaa jirto arday nala joogta hadda bisha waxaa noo bilaabanaya levelka labaad bishiisa lixaad ilaa hadda arday ku dhawaad adiga sanad ku dhawaad isla joognaa jirto ilaa haddana la socdo laakiin ardaydaas way ka badnaayeen sida hadda ay yihiin bil walbo dadaan naga harayo oo ah wixii ku yaraay oo dulqaadkii ama qaar waxaa dhigi karto si un waxyaabo oo adduunyo ama si un ugu soo galaa ma dhihi karno dulqaad yaraha kulligood wada haysay si un nin walba way kala duwan yihiin laakiin si walbo haddii qofku yool u jeedo dulqaadkaasi oo hadda aan idinku celcelinayo muhiimu u yahay waa marka taasaan micnaha isku dardaarmi lahayne waxa kale intaan u dardaarmi lahay waxaa waaye waqti inaad samaysataan waa muhiim nin walba maalintiisa inuu waqti un ka samaysto waxaa kugu filan anwaah waa 30 daqiiqa kugu filan casharadan aad muraajacaysatid ugu badnaana waa 1 saac ama 2 saac hadaa heli kartid waliba 1 saac ku soo kooba ku dhiilahay inaad fadhiisatid buugaad qalinkaada qaabsatid jawi degan meel qol aanan buuq badan lahayn inaad tagtid kadib casharadaas dhan aad muraajacaysatid waan kula talin lahay inaad samaysiin arrintaasi oo ha yareysan sidii aa iskuulka u fadhiisaan isla sidaas le casharadana u qaado oo adiga dhan serious noqo oo qof jaad ah aysan kaa noqonin ha socoto ama casharka iska dhameel ay kaa noqonin cashar walbana ha ka tegin adigoo casharkaasi si fiican aadan u sugin macnaa cashar walbo haddaa ha noqdo cashar ABC aa soo dhigid haddii tahay haddaa fiira wax un ka dhexraada oo faa'iide ah oo markaas aad ka faa'iidi karta asdiin ABC waa kaliya ka gudub asdiin waan waa ABC naftarkeed wax una laga faa'iidaa wax una ku dhex jiro oo qaarkiin ay ka dhex arkaan sida loogu dhawaaqay ka fiiri sidii u socoto harafyada macalinka uu sheegay wixii dhan micnaha wax un inaad ka faa'iidaysid waa taasna badanaa fiiri marka casharadan ha iska soconina cashar walbana iska soojiya ama iska aad si deeply ama si qoto dheer markaasi u dhexgala marka hadda macalinkan idinku wareejin doonaa waxaana idin bilaaban doona hadda wixii ka bilaabay qaarkiin way u bilaabeen isbuuc labaad wixii assignment isbuucaas uu idin diray idinkan wixii su'aalaha isbuucaas aad ka qabtiin aa weydiinaysiin insha Allah mar walba macalinka isbuuc walbo waa la kulmi doontiin si live ah sidoo kalena si gooni ah nin walba private ahaan uu la xiriiri doonaa oo haddii lacala cabasho uu qabo ama su'aal uu qabo dhanka gabdhaha haddii waxaa jirta macalimadaa jirto oo gabar ah haddii iyaga naftarkooda iyo macalinka ragga ay ka xishoonayaan macalin gabadhi haddii rabaan ay la hadal karaan oo way u furan tahay waqti walba macalimadaasna way joogtaa waa barofesoorad oo qaar ka mid ah jaamacadaha dalka wax ka dhigta marka iyagana way idinla joogaan marka idinkale bas yaa laydinka waanin dadaalkii iyo dulqaadkii inaa la imaatiin insha Allah marka ustaadka idinku wareejinaya soo isbuucaas idinku soo xir isbuuc koowaad wixii markaas assignment laydin diran oo idin sharxo kadib anaa idinku soo laabanaya marka macalinka ay ka dhamaatiin wixii cabasho ama cilado ama wixii feedback aana siin kartaan oo ama falcelin isbuucan aa soo dhammaysan aan idinka gudoomi doona marka aad u mahadsantiin ustaad soo dhawo ustaad Mustafa معلش سلمان وما سنتهي وحي هذا اللي معنيس معانيديسي تلاقيت الصلاة أرضي يفتيك أنا برناو أخرسك يا قونتا أنو قادنو إذ بلهانو أشتركينا كأتكانو أقبلوا معلمين توالدكنا أدينو
edeb lahaano casharkeena ka adkaano aqbalno macallimiinta waalidkana adeecno allow macalinkeena kaal inka shaba u heliyo qalbuna abinaya ardayay aqoontu waa sidii ilays waa sida aroortiyo ogta waa barkee ardayay aqoontu waa sidii ilays waa sida aroortiyo ogta waa barkee irmaan weeye ninkii lihii abidba maalo aqbal macallimiinta oo waalidkana adeec irmaan weeye ninkii lihii abidba maalo